dhab ahaantii masiibada maanta waxaa ka nabad galay kuwii qaatay waanada iyo waxsheega kuwii dhageystay talooyinka bahda caafimaadka kuwaas ayaa ah kuwa inay haligmaan ka nabad galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada uu cudurka coronavirus ku hayo dalkeena iyo sida looga badbaadi karo isagoona shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmay inay qaataan talooyinka caafimaad ee dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka dalka. weli waxaa muuqata inay sii kordhayso tirada dadka u dhintay cudurkan oo hadda kor u dhaaftay 137,000 oo qof. waxa uu ku dhacay ayaa la leeyahay dunida in ka badan 2,100,000 oo qof. waxaa sidoo kale muuqata in cudurkani aanu xaduud lahayn oo isaga gooshaya qaarado taasoo keentay inuu hadda aad ugu soo badanayo dalkeena iyo dalalka aan deriska nahayba. maadaama ay sii kordhayso tirada dadka uu cudurkani ku dhacayo dalkeena oo ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay ay tahay 80 qofood boqolaal kalena ay wasaaradda caafimaadku ku wado baaritaan iyo hubin dhowr qofna ay ugu geeriyoodeen isbitaalada khaaska loogu daaweeyo. allah u naxariistee waxaa walaalayaal muhiim ah in aan maqalno kuna dhaqanno talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed. dadka uu hadda cudurkani ku dhacay waxaa ka mid ah dhaqaatiir iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo ah adeegayaasha bulshada ee taagan safka hore. waxay dadaaladaas u bixinayaan naftoodana u hurayaan inay badbaadiyaan nafta shacabka Soomaaliyeed. wasaaraddeena caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan maalin iyo habeen waxay u taagan yihiin inay dadka Soomaaliyeed badbaadiyaan waxayna naga mudan yihiin sharaf iyo ammaan. si haddaba loo xaqiijiyo la dagaalanka cudurkan waxaa jira guddi heer qaran ah oo aan anigu ka mid ahay oo isugu jira xukuumadda, culummada, dhaqaatiirta, ganacsatada iyo bulshada rayidka oo kulmo maalin walba. sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay wasiirada caafimaadka ee dowlad goboleedyada waxaana aaminsanahay in guddigani uu yahay guddi ka shaqeeya sidii loo samata bixin lahaa ummadda Soomaaliyeed. waxyaabaha aan isku raacnay waxaa ka mid ah inaan kulligeen ka wada shaqeyno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeena caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan. dhanka kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu cadeeyay in la kordhinayo xarumaha lagu daweeyo dadka uu soo rito COVID-19 lana badin doono baaritaanada si qof walba uu helo fursad uu isugu baaro. dowladana ay ku howlan tahay soo iibinta qalab caafimaad oo ka qayb qaata xakameynta cudurka coronavirus. waxaan sii kordhin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo xarumaha lagu daaweeyo cudurkan oo aan bilownay inaan qalab dhigno xarumo cusub. waxaan badin doonaa baaritaanka si qof walba oo isaga shakiyo cudurkan uu u helo fursad uu isugu baaro. waxaan ku guda jirnaa oo aan ku maqannahay inaan soo iibsano qalab caafimaad inta aan awoodno dowlad ahaan si aan dadkeena ugu fidino adeeg hufan oo ay u baahan yihiin. waxaan bangiga adduunka kala heshiinay inay noo soo iibiyaan qalab caafimaad ee aan hadda u baahannahay si aan ula dagaalno cudurkan. qalabkaas oo aan rabno inaan geeyno isbitaalada inta ugu muhiimsan. xukuumadda, ganacsatada, dhaqaatiirta, bulshada rayidka iyo culummadu waxay wadaan dadaal xooggan oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed oo u baahan gargaar. dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas iyo dadka walaalahooda oo bannaanka taagan si ay naftooda u badbaadiyaan. ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyaddu waxay ka wada shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa saameynta dhaqaalaha. sidaas daraaddeed ayaa loo dhimay canshuuraha raashinka daruuriga ah si shacabka aan loogu qaaliyeyn cuntada. waxaan dowladaha Yurub iyo Mareykanka ka codsanay sidii bangiyada iyo xawaaladaha Soomaaliyeed shaqadooda loogu fududeyn lahaa maadaama ay dunidu gashay xaalad adag. waxaan ka sugaynaa jawaab waqti dhow oo aan aaminsanahay inaan heli doono xal. waxaan ka codsanay bixiyaasha in caawinaadaha ay bixin jireen ay u wareejiyaan dhinaca caafimaadka iyo taakulaynta danyarta oo cudurkani saameeyay nolol maalmeedkooda. ganacsatada waxaan mar kale ka codsanayaa inay shacabka u turaan xaaladan adag ee lagu jira awgeed. waxaan xasuusinayaa ganacsatada Soomaaliyeed in shacabka Soomaaliyeed uu yahay kii ganacsigooda bili jiray, noloshooda iyo badbaadadooduna ay kulligeen waajibna saaran tahay. culummada Soomaaliyeed ee sharafta leh
waxaan ka codsanayaa inay sidii ay shacabka codkooda ugu gaarsiin jireen in badbaadada naftu ay ka muhiimsan tahay wax kasta u gaarsiiyaan kulana taliyaan in qof walba uu gurigiisa ku cibaadaysto waayo waajibaadka dhinaca diiniga ah waxaa ugu horeeya badbaadinta nafta qof kasta oo awooda waxaan kula talinayaa in ay guryahooda joogaan si ay naftooda iyo nafta walaalahood u badbaadiyaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo aan idin sheegay in qaarkood iyagoo badbaadinaya dad cudurkan ku dhacay iyagii uu ku dhacay waxaan leeyahay ayagana allaha badbaadiyay laakiin maanta waa maalintii aad wax u soo barateen bulshadiina leedinkuna baahi badnaa ayna tahay maalintii la rabay dadaalkiina inaad sii laba jibaartaan saxaafadda waxaan ka codsanayaa inay xaqiiqda u foojignaadaan mar haddii arrinkan laga hadlaayo uu yahay arrin caafimaad waa inaan loo gudbin shacabka Soomaaliyeed warar abuuraya khalqal iyo walwal caafimaad ka qaata xogta rasmiga ah wasaaradda caafimaadka oo maalin walba soo saarta warbixin aan dadkeena ilaalin gaar ahaan waayeelka iyo dadka xanuunsan aan alla ka cabsiga iyo baryadiisa badino si ilaahay ummadeenna u badbaadiyo waxaan rabaa mar kale inaan shacabka Soomaaliyeed xasuusiyo badqabka bulshada iyo badbaadintooduba maanta waxa ay ku jirtaa waa kala maqnaanta muddada cudurkani jiro inaad eheladaada iyo asxaabtaada ka maqnaantay ama aad ka maqan tahay oo aadan booqan xilligan adag ayaa daliil cad waxay u tahay in qofkaas damiirkiisu uu xooggan yahay oo aad dadkaada ka ilaalinaysid dhib aadan la jeclayn saacadaha SBC Mogadishu.